بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aniga ahay Colonel Ahmed Gedle waxaan rabaa halkan inaan ka hadlo caawa oo ah maalin ciid ayaan rabaa inaan arrin yar ka hadlo arrintaas oo ku saabsan ayaamahan oo meel walba maraysa ama meel walba ku qoran arrintaas oo ah goboladii Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa laga qaxaya gaar ahaan gobolkii Sool ayaa la isku dilayaa oo laga qaxaya ba meel allaale meeshaad martaba iyo meeshaad akhridaba ayaad ku arkaysaa marka waxaan rabaa arrintaas oo aad uga xumaaday ama aad oo aan ula yaabay ayaan rabaa inaan caawa wax yar ka hadlo ayaan doonayaa marka sidaa awgeed bay u kaliftay caawa inaan arrintaas ka hadlo bismillahir rahmanir rahim waxaan marka hore maanto ah maalin ciida aan rabaa inaan halkan wax yar hambalyo uga diro ummadda muslimiinta meel joogaanba gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ummadda Soomaaliyeed halkan uga dirayaa hambalyo ku saabsan maalinta ciida waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel aad joogtaanba Soomaaliyeed waxaan halkan baaq nabadeed uga dirayaa dadka reer Khaatumo ee ku nool gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn gaar ahaan gobolka Sool ee Laascaanood waxaan leeyahay nabadiina ilaashada reer Laascaanoodow anoo baaq dheer ku leh nabadiina ilaashada reer Laascaanoodow kuwa tirada yar ee raba inay idan qaxiyaanna iska qabta kuwa tirada yar ee raba inay idin qaxiyaan iska qabta wadooyin baad haysataan isbitaallo baad haysataan iskuulo baad haysataan masaajido aad ku cibaadaysataan baad haysataan guryo qurux badan baad haysataan waad qurux badan tihiin hadda markaan arkay masaajidadii iyo barxadda weyn ee magaalada Laascaanood iyo magaalada Buuhoodle iyo magaalooyinka kale ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sida fiicneed ee quruxda badnayd ee aad u ciidayseen ee aad u labisnaydeen markaan arkay iyo waxa sukay qaban weyday goboladii Sool iyo Sanaag iyo Cayn oo meel walba la qorayo meel walbana laga hadlayo leeyahay way qaxayaan kuwii ku noolaa gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa qaxaya qof kasta ku leh oo Soomaaliyeed taasan markaa u adkaysan waayay haddaad qaxdaan intaasi midna ma jirayso haddaad qaxdaan intaas midna ma jirayso eega dadkii hore ee qaxay noloshooda waxaad fiirsataan oo eegtaan oo dib u milicsataan Soomaalidii ka qaxday goboladii Soomaaliya ka qaxay ee meelaha dariska Soomaaliya u qaxay eega dhibaatada ku dhacday eega markaas aad fahmaysaan qax wuxuu yahay dagaalkii SSC iyo Somaliland ku dhexmarayay gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ma idaan qaxin dagaalkii ku dhexmarayay SSC iyo Somaliland ee dhiiga badan ku daatay ee dhaqaalaha badan ku burburay reer Laascaanoodow ma idaan qaxayn mana la maqlin Laascaanood baa laga qaxaya markii maamulka Khaatumo iyo Somaliland ay dagaalamayeen maanan maqal ama lama sheegi karin magaaladii Laascaanood ama goboladii Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa laga qaxaya lama maqli jirin maxaa keenay in la dhaho Laascaanood maanta ayaa qaxaysa Laascaanood baa maanta qaxaysa in la yiraahdo idinka hore u qaxi waayay markii gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn SSC dagaalamayay iyo Somaliland ma idin qaxayn markii Khaatumo iyo Somaliland dagaalamayeen hareeraha Laascaanood ma idin qaxayn mana idin qaylinayn waa maxay maanta marka Laascaanood baa qaxaysa waxaan idin leeyahay reer Laascaanood waad ceebaysan tihiin waa ceeb in maanta 2018 in la dhaho Laascaanood baa maanta qaxaysa waa ceeb kuwaas lacagta dibadda laga soo dirayo
ee loo soo diraya laascaanood ee loo soo diraya buuhoodle ee loo soo diraya magaalooyinka kale ee dibadda jooga ee laascaanood iyo buuhoodle iyo magaalooyinka kale dibadda jooga ee lacagta yar intay u soo diraan $500,000 intay iska soo ururiyaan u soo diraya odhanaya laascaanood kuwa jooga ee wax magaratada ah ee soo kicinaya caruurta iyo dumarka soo kicinaya ee odhanaya wadooyinka laascaanood taayirra ku guba qayliya marba dhinac u carara calan yar tuurta ku xidha kuwa sidaa odhanaya ee reer laascaanood ama buuhoodle ama magaalooyinka kale reer Khaatume gudaha waxaan u sheegayaa iska qabta dadka tirada yar ee lacagta yar loo soo dirayo iska qabta waxaad tihiin reerka kaliya ee Soomaaliya 30 sano ee dawladda dhexe Soomaaliya burburtay reerka kaliya ee farakutiriska ah ee aan dhulkooda ka qaxin dhibaato kasta ha qabeen dhibaato kasta qab ee aan ka qaxin baa tihiin in maanta 2018 in maanta goboladii Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadkoodii la yiraahdo ama lagu shaabadeeyo way qaxayaan maanta qaxayaan in la yiraahdo waa ceeb idinkoo ka soo doogay wixii oo dhibaato ahaa idinkoo ka soo doogay oo Ilaahay ka badbaadiyay inaad maanta qaxdaan ama maanta qaylisaan ama maanta isceebaysan horta maaha waxa weeye cadowgiina badan waxa la rabaa inaad qaxdaan waxa la rabaa inaad duurka ku dhidhimataan idinka iyo caruurtiinu ayaa la rabaa marka haddii Ilaahay ka badbaadiyay Ilaahay hadduu idinka badbaadiyay dhibaatadii Soomaaliya ka dhacday 30 sano ka dhacday iyo qaxii dhacay haddii Ilaahay ka badbaadiyay alxamdulillah dhaha war iska qabta kuwa tirada yar ee lacagta dibadda ka soo diraya ee laascaanood ka laascaanood jiraayad ku qabta buuhooda jiraayad ku qabta taleex jiraayad ku qabta boocama jiraayad ku qabta war kuwa iska qabta tirada yar ee lacagta $500,000 loo soo dirayo iska qabta waxa weeye nabad baad haysataan maanta anigu nabad baan ku baaqayaa war nabadiina xajista war in wax la burburiyo way fududahay war wax in la burburiyo way fududahay war in la wax la dhiso way adag tahay war si easy oo aad u fudud baad u qaxaysaa inaad soo noqoto oo ka kabataana sanooyin bay qaadanaysaa ama ma dhacaysaba u fiirsada dhulkii laga qaxay ee koonfurta ahaa dhibaatada dadka ku dhacday marka reer laascaanoodow dhibaato iduma hayso Ilaahay ma hadii baad joogtaan haday jiraan dhibaatooyin haday jiraan ogow waxa jirta dhibaatooyin ka waaweyn taad adigu tirsanayso dhibaatooyin ka waaweyn baa jirta ogow taas ogaada anigu waxaan idin kula dardaarmayaa reer laascaanood ama gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn dadka jooga inay iska qabtaan kuwa tirada yar ee dibadda lacagta ka soo diraya waxaan u sheegayaa kuwa buuhoodla jooga waxaan u sheegayaa kuwa Sool waxaan u sheegayaa kuwa gobolada jooga kuwa dibadda lacagta ka soo diraya ma naxariis iyo wanaag maaha annaga naqaan 11 sanadood maalintii Soomaaliland laascaanood loo dhiibay dagaalkii aan Soomaaliland la galay 11 sano ka soo wareegay annaga naqaan ma ilaa iyo waaga markaan xoreynta ka hadli jiray kuwii xoreynta ka soo horjeeday ee lacagta ku bixinayay ee laha Sool iyo Sanaag iyo Cayn lama xoreynayo ee annaga nagu laha wad waalantihiin Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxba kama maqna maxad xoreynaysaan waa waalantii kuwii nagu laha ayaa maanta waxay leeyihiin gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn baan xoreynayna kuwan la hadlaya anigu waa kuwa ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn anigu cid kale ka hadli maayaba dhibaatada kuwa dadka ku haya ee ummadda ku haya gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn number 1 waa kuwa ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn kuwa Sool iyo Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda ayaa ummadda dhulbaantee dhibaato ku haya waa kuwaasi waa kuwii diidana Khaatumo inay dagaalanto ka soo horjeeda lacagta badan ku bixinayay SSC inay dagaalanto oo dhulka la leeyahay waa la xoreynaya xoreyso waa kuwii ka soo horjeeday ee dhulbaantaha ah ee dibadda jooga waa iyagii ba maanta shaar kale soo gashadeen oo ay leeyihiin waxba la xoreynaya waxa weeye waxa iska ilaawa idinku dhulkiina adkaysta dhulkaaga adkayso yaan lagu qaxin anigu waxaan taagnahay yaan lagu qaxin baan anigu taagnahay marka waxaan u sheegayaa ummadda gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee gudaha jooga inaad iska ilaalisaan inaad qaxdaan lambarka yar ee tirada yar ee $500 loo soo dirayana iska qabta kuwa iska qabta
iska qabta kuwa dhagax ku dila wuxuu rabaa inaad duurka ku baqbaqtidaan idinkiyo ilmihiinuba inaad duurka ku baqbaqtidaan isaguna kaas idin biliqaysto inuu xawilaada biliqaysto inuu guryihiina biliqaysto ayuu rabaa marka ka iska qabta waa biliqadoon inuu idin biliqaysto rabaa kaasi marka waxaan u sheegayaa dadka reer Laascaanood gaar ahaan cid aan la hadlayo aniga ee miiska saaranay ee ceebtoodii meel laga maro la leeyahay waa reer Laascaanood meeshan marraba waxa la leeyahay dhulbahanta qaxaya iyo Laascaanood baa qaxaysa la leeyahay meel walba waxa igu kalifay halka inaan ka hadlo maanta markan maalinba mashruuc baa la keenaya maantana mashruuc baa socda ah Laascaanood baa la xoreynaya mashruuca waxaan leeyahay reer Laascaanood labada dhagoodba ka furaysta iska qabta nabadiina Laascaanood nin kale waxbaan xoreynaya iyo kuwa laamiga cararaya iska qabta dhibaatada waxa isku haya waa dhulbahante dhexdiisa cid kale ha eersan kuwa lacagta isku diraya lacagaha isu diraya dadka qaxa oo carara waa dhulbahante waxa weeye runtan sheegaya dhulbahante waxa weeye waa hordib dibadiid meel u socdo iyo meel ka socdo midna garan maayo waxa weeye haddaad maamul taageeraysaan oo ay idinka run tahay dhulbahantow hadday idinka run tahay oo idinka dhab tahay taageera maamulkiini Khaatumo ee 5,000 ee taleex isugu tagtay ee 13 garaad dhaarta mareen ee saxiixeen ee 100 caaqil ay taleex ku saxiixeen ee 500 ilaa 1,000 aqooyahan ee nooc walba leh ay saxiixeen kaasa maamulaha kaasa shaqeynaya aniguna kaasan aaminsanahay wax ka dambeeyana ma jiraan maamulkiina Khaatumo ka adkaysta ninka isagu inuu xukuumad diiday sida reeraha Soomaaliyeed ee reer walba isagu isxukumaya ninka diiday waxa uu rabaa waa in reer kale Soomaaliyeed xukumo reer kale Soomaaliyeed ayuu rabaa inuu xukumo annagu ma ogolin reer nalamida iyo nin nalamidi iyo jilib nalamidi inuu xukumo ma ogolin waanu diidnay dhulbahantow adigu haddaad isdiiday in nin kale ku xukumo haddaad rabto annagu diidnay ka suqujaanka ah ee dulliga ah ee isagu intuu maamulkiisi la dagaalamay lacagta ku bixiyay baabi'iyay ee maanta waxbaan xoreynaya yaad u sheegaysaa cidaad u xoreynaysaa yaad u sheegi waxaan u sheegayaa dadka Laascaanood iska qabta xogaaga shilmada yar dibadda looga soo dirayo kuwa dibadda lacagta ka diraya ee dulligaana waxaan leeyahay ee dadkooda ku qaxinaya lacag $500 direen leeqaxa oo dibadda u soo baxa oo laamiga burburiyo masaajidada guriyahina burburiyo kuwaana waxaan leeyahay ilaahay haydi soo hadeena leeyahay waxaan markaa leeyahay ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn meel ay joogaan ba waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahay waxaan ka baryaynaa in ciideeda inagoo barwaaqo iyo nabad ilaahay iska tuso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.